السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وناكسنا صحابي مالكستور نايدا ورسان كسو دوادا متكالي هدبا قصدا وحيد علي سنة كي لبكن أفريا طبعا وحينا كرد علي دالكا إماراتكا هدبا دالكا إماراتكا محا كرد علي سيدا قصدا هالكن مقعيدا وحالو قد لي هالكاس lawyer nin abukaata ah ama qareen ah ayaa lagu dilay sidii lagu heli lahaa dilaagii qareenka ayaa waxay sameeyeen booliiska imaaraadka waxyaabo la yaab leh oo markii dambe ay ku guuleysteen haddaba sidee loo soo helay dilaaga siduuse shilkan u dhacay yuuse ahaa dilaaga lawyerka waa qiso runtii cajiib ah oo dhanka baarista dambiyada iyo waxa kan aad dadka u xiiseeya ay wax badan ka ogaan karaan haddaba yaana waqtiga idinku dheeraynin nin geel la socda deegaanka la yidhaahdo ra'sul khayma oo ka mid ah imaaraadka isagoo geel la socda ayuu wuxuu arkay gaari tog ka dhacay oo halkaa ku burburay togga dushiisa marka waa laamigaas marka gaariga ka dhacay oo togga hoose ku dhacay ayuu arkay ninkaa marka geeliisa iyo wixiisu galbihii meelaha usoo bixiyaa markay qoraxda xoogaa degto ayuu geela la socsocdaa ninkii marka togiyo soo degay wuu soo degay gaarigii yimid gaarigii isagoo dhan koomba isku noqdo saas isugu jajabay oo qof ku dhex jiro dhintay ninkii markuu halkaas baashu joogto wuxuu wacay booliiskii wuxuu yidhi meeshaas togga ah ayaan anoo maraya arkay gaari ka dhacay togga markii aan gaarigii dul tagayna qof dhintay ayaa ku jira gaarigii dhanna wuu isku jabay booliiskii way soo carareen waxaa kaloo soo cararay qoladii damdamiska iyo iyaguna waxay wataan damdamiska dab kaliya ma damiyaan adduunka waxay ka shaqeeyaan biraha baabuurka sidaasoo kale markuu isugu jajabo way jeexjeexaan birihii iyo wixii si ay qofkii uga soo dhex saaraan waxay idhaahdeen qofku ma nool yahay gaariga mise wuxuu yidhi ma u malaynaya inuu nool yahay sababtoo ma dhaqdhaqaaqa ayuu yidhi koraa uga jeeda aniga ma u dhowaan karin waa baabuurkaas ku jajabay booliisku way soo carareen gab meeshaa la yimid waa la jaxjaaxay bahladii ninkii meeshii isagoo ku jiraa la soo saaray ninka marka wuxuu fadhiyaa meesha gaariga laga kaxaynayo kursigii steerinkuu fadhiyaa steerinkii xabadkii wuxuu kaga dhacay wixii oo dhan ninkii waa la soo bixiyey waa dhintay bannaankaa la keenay laakiin booliiskii waxay la yaabeen ninka labada lugooda ka xiran labadaliisa lugood waa isku xirayay way yaabayin marka waxay dhaheen shil ma ah waa jariimo waa dembi waaye baashaan waa dhacdo waaye waa arin dembiya waaye marka waxay u baahan tahay baaritaan nin labada lugood ka xiran suu baabuur u wadaa yaa labada lugood ka xiran qof kalena lama jooge marka waxay yidhahdeen shil maaha sheekada ninkii waa la qaaday meydkiis meelaa la dhigay rag marka khubaro ah oo dhanka baaritaanka dembiyada iyo ayaa loo yeeray wixii dhacaan loo sheegay marka ninkii marka kooxda tiimka madaxdu ah ayaa wuxuu sheegay ninka marka hore ninkan dhintay aan ogaana marka hore waxaa sidoo kale uu amray baabuurka in lagu sameeyo fara laga qaado baabuurka dhan intaa qofkii taabtay wixii oo dhan fariiso inaan la qaado ninkana in la baaro ninkii marka waa la ogaaday ninkii wuxuu noqday
أبوكات أحمد الطحناني ما لها الطحناني لها أبوكات أحمد نلا لها أبوكات وين وعانا أو إماراتيا أجنبي ما هاي أبوكاتها مركا يالوغاها كحري أو توقع كتوري بابور كيس مركا وحيوباتها بارتان أبوكاتها بارها الدنبية قاضياشا محكمتها قرصورياشا انت بدن خطرين لكل معناها دنبية باران حكم نيفدان ضدي الضوضان وحيابها سجل صما مركا وحي كل احترام بالشدي دنبيدي مارتي كلا حكمي يعني انتاس وقاضية محكمتها ودنبي بارها بوليسكا يا أبوكاتها dadka hawsha ka shaqeeya marka khatar badan mar walba laga yaabo inay la kulmaan marka ninkan ya cadow ku ah sidiisaba ikii baarayaasha madaxdu waa wuxuu yiri ninkan aan ogaano iyo la dirarsanaa iyo cadow la ninkii waa la soo helay laakiin sababta ninkan loo dilay iyo cidii disha waa la helaa baashu inay jariimata waa loo jeedaa ay dambi tahay isa shil ahayn nin lugaha ka xiran oo istaarsada ku fadhiyo butug ka dhacay yaa lugaha ka xiray nin lama joogo suuragal ma marka taas marka shakiga ugu weyn taasaa keentay marka baaritaanadii qoladii baaritaanka way fariisteen waxay yiraahdeen arrinka marka waa inaan baarnaa marka waa inaan horta dadkii wareysanaa naagtiisa u tageen waxay u tageen dadkii kale oo yaqaanay naagtiisa waxa tiri waxay weydiiyeen waxay yiraahdeen wax cadow oo lahaa ama waxan jabaada uu la kulmay maadaama xaaskiisa ay waxaas ma haysa ma yitir wallahi ka tan ninkaan fiican u ahaa nin wanaagsan u ahaa kullay wax aan ku ogahay haddeer hadduu soo qarsanayn waxba iima sheegin wax aan ku ogaa male nin iska socdo cabsi qabin u ahaa gaarigiisa iska wata مالي وتكتجي جري الرجع صاحب بديسا كل قف كستمركا أي يقول لها الليان فريق قاضي بوليس وحيكو أركان بابوركا لبا فراد أو عصب معنا فرا قديمة يفرع عصب أجرا فرا عصب مركز أيا لوارك لبداس فراد رادين أيا المركا إني أوجادان دتك إسكال فراس marka qof kasta oo ninkan saaxiibayeen loo faray ka qaadayeen nik wal way wax raada wala lay ninkii marka gudidan baaritaanka qoladan booliiska madaxdu ahaa nin odayo cajiib ah oo de khibrad badan laho waxyaabo badan baaritaano badan soo sameeyay wuxuu yiri uu yeeray booliiskii uu yeeray wuxuu ku yiri dhageysta ninkan labadii sano ee ugu dambeysay ama saddexdii sano ugu dambeysay wax ashtaka inuu ka ashtakoonayo booliiska u soo gudbiyay ma jirtaa waa baaritaan ugu sameeyaa ama cid isaga ka soo ashtakootay oo maaragtay ka soo dacwootay ma jirtaa labadaas hal laga keeno yiri xogtooda marka mawjada baaritaanka waa inaad maaragtay khibrad u leedahay way aragnimo u leedahay waxa abaarayso waa inaad ka taqaanid marka wixii oo dhan waa la soo waayso ma ninkan marka waxa la raadinayaa qof isaga soo dacweeyay ama qof uu isagu laftirkiisu dacweeyay meeshaas marka waxa laga rabaa in laga amba qaado oo loo maleeyo ninkan horta dad isaga ka soo horjeeda dilay marka mihnadiisa ma loo dilay ma wax kale laga disay lama yaqaan laakiin waa in la ogaadaa nin korneel ahaa marka ninka hawsha qaabilsan ninkii korneelka subaxii riboora loo keenay waxaa la yidhi xaaskiisa saddexdii sano ee lasoo dhaafay 6 jeer soo ashtakiis ahlan wa sahlan waa kaasba jidkii hadda la helayaa xaaskiisa iyo asagu marka way u tuurnay ninkan marka wuxuu helay wadadii uu wax ku bilaabi lahaa u helay
ninka marka wuxuu yiri xaaskiisa 6 jeer ashtakadu marka maxay ahay ninkani iyada mar walba isku dhici jireen problemya ka dhex dhici jiray way soo dacweyn jirtay mararka qaar waxyaabo easy ku soo dacweyn jirtay waa marka waxyaabo marka waxa jira wuxuu marka mar kaliya nin naagtiisa mar walba way isku dhacaan oo wax iska normal ah waa la isqabtaa dadka guriyaha isla joogo maaragtay isla wada nool way isqabtaan laakiin 6 jeer 3 sano gudahood in booliiska ay tagto de waa wax weyn maray tagtay iyo laba waa iska caadi qofkan way handada way dharbaaxay ninkeyga hadana waa iska heshiinay wax waa iska caadi laakiin 6 jeer asaalan u dha naagta leeyahay u fiirsada ninkan taatikada uu isticmaalay u fiirsada naagtii waa la soo qabtay booliiskiis ninkii baa loo keenay baari naagtii markii loo keenay wuxuu yiri mobilkaagi keen mobilkeedii dhiibtay mobilkii xareystay wuxuu yiri mobil kale aa isticmaashay malaamaya tirkan bas isticmaalaa okay mobilkii horta baa u dhigtay wuxuu dhahay ninkaaga iyo adiga maxaa cilaaqa oo idinka dhaxeeyay oo maaragtay xiriir idinka dhaxeeyay oo dhibaato ah oo mushkilada ma jiray way aamustay waxba naga ma dhaxay ku celiye ninkaaga adiga wax problem ma idinka dhaxeeyay wax gooni oo naga dhaxay male nin iyo xaaskiisa mar walba ay murmaan kan waaye 6 jeer 3 sano gudahood inaad saldhigga booliiska timid adoo dacwaa oo ninkaaga lawyer-ka ka dacwoonaya ku qabay odagaan ma jirtaa haay tiri maxaa qasbaa leeyahay 6 mar inaad booliiska kusoo dacwaysid haddana la sii noolaad way argagaxday maya waxa iska tiro waa iska normal waa ninkan dhowr su'aalo weydiiyay markii gabgabdhay soo arkay mobilka waa ka tagaysaa yiri anaga baarayna iska bax mobilkayga aniga waa u baahanahay waa khalkhalay bilow ninka meel uu ka galay fiiri khalkhal isku dhaxyaaca bilow baxuuna gurigeeda la geeyay gurigeeda loo qaaday gurigeeda mobilkii la baaray maalinkii gaarigu meesha ku dhacay maalmihii ka agdhawaa hal number oo waxa jira aad ay u wacday isaguna uu aad u soo wacay way shakiyeen marka ninkii baaraha wuxuu yiri waqtiyadii wuxuu ay dhaceen naagtan iyo ninkan aad ay u xiriireen ninka marka muxuu yahay numberkii la qaaday shirkadii la weydiiyay nin imaaraati ayaa iska laaliyay numberkan naagtii waa loo wacay mar kale saldhigga booliiska way khalkhalsatahay waxaa la yidhi ninkan numberkan iska leh muxuu yihi ninkan waxaa waaye ninkan teleefonkaaga adigana intaasoo jeer aad la hadashay isagana intaasoo jeer uu kula soo hadlay muxuu yahay ninkan sheeg waxay tiri ninaan isnaqaano waaye is-aqoonid ka badan intaan habeenkii saq dhexe intaasoo jeer waqti dambe intaas subaxdii intaas maxay tahay calaaqada idinka dhaxay karta ninkana ku qabay ninkan weliba marka shilku dhacayo aada u xiriirteen hala xarudha waa lagu tuuray markaan awal iska noqaal dhijir hadda waa la xare shakiga waa sii batay ninkii baaraha wuxuu yiri marka numberkan ninka iska leh la soo qabto nab baa la soo siiyay nin imaaraati waa dhag meesha la keen حاليري أبو كاتي أحمد
xaaskiisa oo heblaaye la yiraahdo ma taqaanaa mayo dhaay ma taqaanid miya maye rani abukaataana ma aqaano naagtaa sheegaysaan ma aqaano kana ma aqaano ولا وحال لا دقيس حكت هذا دن واحد نالي شغادي عاد ماشي كقبت ولا هردع مكت شغادي عاد هوش كقبت نوع أقدي ناكت نك قبا انت تشيرو ايكو صو عدي انت تشيرو او عدي ما لهذا ما اغاني اللي وراء انا لو شيء يسوي حاس نيكي واقع كبريمه واقع وعكوير وأمص أنا كمان نهالاي ما يسنا قالوا دكتاس ومالك لو تشار كل هذا وده هالليسين أنت أصوص ساعدود وده هالليسين تضبط وراه حسن وشيء الله حكتنا واهينا هذه ناكت واحد سبع سنة منو شيء يسدم بيجي مسكة في فيل سامسة نكواخل خلي وكان مرات ورا نبرحها ما وكان عربتها واكو قراعة ما أنا كرنت على غير سيرة ولي حقوق هذا هي هذا قرا واحد هذا ملكو يلا نيكي مركي الله عركي بعوش الأكتر وحرت السجنة إنه كمل المركسي ويحب مركا باريكي بركة شاكري وصلها نيكي وحول إنه أنا ورمي ذي شيء ها waxa ogtihiin ma qaanu laakiin ani wixii aan ogaayay sheega Allah maxaa ogeyd ninka dilkiisa naagtiisa ka dambayso dhaay ahlan wa sahlan haye soo fariisaleen marka ninka naagtiisa ma dilaysa ha hay maxaa dilaysa ninkan dhaqaale fiican oo haystay lacag fiican oo haystay naagta أنا مركب وحويري أنا ينن باكستاني وأنا لكريستاوي هاي أنا إمارات كجروبان هاي وأنا لكريسنا تدا خارجينا تدك خارجينا أنا باستولد ينتقو قاعدنا وحكنكم الدلنا هاي waxyaabo farsamaysan oo shil u egiyo waxyaabo aan laga shakinayn iyo waxaas ku sameynaa naagtan marka lacag ku dhow 200,000 oo dollar ayay miiska ii saartay ninka Bakistaaniga aanu ila shaqeeyaa haye annaga marka wuxuu yiri lacagtii aan ka qaadanay ninkan marka annaga baabuurkiisa la raacnay سأفضوب عملا ماشي اللي جاي توجي عن جيني وعكتور لكن هذا أنا وأوجه هيون رحي باكستاني كانوا إيش جاي ولقين هذا بوليستين ما أوجه لهين هاي إنك باكستاني كا استبدني بس بيو لويه أو كحر نيكو كهل مامي مش لويه إنه أنت كفره ninka asagoo dhintay neefta aan ku dhijiday gaariga saas loo saaro lagu taraarixiyo meesha laga tuuro kii baara waya waxa shil u maleynaba magaaladan hebel shil ku dhintay iyo aan leenahayba idinka qaramsaday biya marka hadda wuxuu yiri anaga waxaan fashiliyay ninka Bakistaaniga oo ninka isagoo lugaha wali ka xiran baabuurka ku taraarixiyay laakiin waligiin maydnaan fahmileen naagtaana noo dirtay kaashkaas keentay 200,000 dollar koontadayda ku soo shubtay bangiga waa weydiin karteen ayadaa soo dirtay lacagta ninka lacag millions dollar oo haystay inay ka dhacday rid laba cunug kaliya u dhashay labadeed cunugii waxay inay farsamaysato naagta ayada halaag u dhacayda shaqada loo dirtay ahlan wa sahlan ninki marka shaqadii uu soo koobay ninka Bakistaaniga nab la soo siiyay waa la keenay Bakistaaniga sidii ninka uu sheegay saasa naagtaas noo dirtay shaqada
anigana ninkii gaarigan ku taraarixiyay ninka dilay laakiin oo neefta ku dhajiyay oo ninka maaragtay ceejiyay oo ninka miskiinka dilay waa ninka Imaaraatiga naagta lacag ay bixisay ninkan Bakistaanigana hawshu dhamaystiray ninkii oo dhinto gaariga ku si taraarixiyay si aan loo ogaan laakiin waxa Ilaahay baa ka shifay banaanka keenay agtii ala soo qabtay sida wax u dhacaan sheegaalay inay inkirteed damacday waa ognaalay xogta dadka aad adeegsatay waxan way shoogtay iyadana sidii ay wax u dhacaan ay u sheegtay ninkii baaraha marka muxuu ku guuleystay kiiskii inuu helo ay ku guuleystay isagoo isticmaalay khibradiisa booliis baaritaankiisa iyo wixiis naagtii ninkii Imaaraatiga ninkii Bakistaaniga maxkamadda la geeyay maxkamadda ninkii Imaaraatiga dilay ku xukuntay maadaama ninka isaga uu gacantiisa ku dilay naagta lacagta bixisay ninka Bakistaanigana xabsi daa'im ay ku xukuntay sidaas marka qisadii cajiibka ahayd ee dilaaga lagu helay looyarkii lagu dilay dalka Imaaraadka runtii waxay ahayd qiso cajiiba oo dhanka dambiyada iyo baaritaanka iyo sida dilaaga loo helo